xarunta gobolka Doole ee magaalada Wardheer ayaa waxa ka qabsoomay kulan looga arrinsanayay dardargelinta howlaha caafimaadka degmooyinka gobolka Doolo. kulankaasi uu shirgudoominayay isku duwaha xafiiska caafimaadka gobolka Doolo mudane Cabdinajiib Xasan isla markaasina ay ka soo qayb galeen madaxafiisyada caafimaadka ee afarta degmo iyo sidoo kale xubno ka socday xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida. kulankaasi ayaan ahaa mid diiradda lagu saaray wacyigelinta tallaalka jadeecada iyo adeegyada ku dhafan oo laga bilaabi doono 22 May kaasi oo laga qaban doono afarta degmo. gabagabadii waxaa loo qaybiyay afarta degmo oo ka mid ah degmooyinka gobolka Doolo agabyo kala duwan oo loogu talagalay wacyigelinta bulshada isla markaasina loo adeegsan doono kuwaasi oo kala sida microphoniska gacanta oo dhan 60 xabo iyo sidoo kale boodhadh iyo agabyo kale oo wacyigelinta bulshada loogu talagalay in loo adeegsado ayaa wax weyn ka bedeli doona tallaalka jadeecada iyo adeegyada ku dhafan ee dhawaan laga bilaabi doono degmooyinkaasi. isku duwaha xafiiska caafimaadka ee gobolka Doolo mudane Cabdinajiib Xasan oo warbaahinta dowlad deegaanka Soomaalida SRTV u waramay ayaa halkaasi uga warbixiyay agabyada kala duwan ee loo qaybiyay degmooyinka gobolka. waxaa maanta si rasmi ah ugu qabsoomay inaan qaybino agab kala duwan. agabkaas oo ahaa laba nooc oo isku jira. agab wuxuu ahaa agab microphone ah oo loogu talagalay in wacyigelinta laga qayb qaato aanu qaybinay toddoba degmo gobolka Doolo taasoo ku soo beegantay qaybinteeda xilli aan bilaabayno ololaha tallaalka isku dhafan ee tallaalka jadeecada iyo waxa weeyaan agabyada kale ama adeegyada kale ku dhafan sida siinta caruurta kiniinka gooryan calooleedka, siinta caruurta kiniinka vitamin A-ga, baarista caruurta 9 bilood ilaa 59 bilood jirtay laga baaray nafaqa darrada, hooyooyinka uur kale iyo kuwa naaska nuujinaya iyaga laftirkooda laga baaray nafaqa darrada, baarista hooyooyinka qaba isku furanka xilliga waxa weeyaan ay ku dhacdo dhalmada kadib hooyooyinka ku umulaya goobahan xarumaha caafimaadka leh ama miyiga ama hooyooyinka fooshu ay muddada dheer haysay ku raagtay baadigoobkooda iyo ku xidhitaanka waliba qoybihii laga daweynay. barnaamijkaas oo isku dhafan yaan ka bilaabayna maanta gobolka Doolo. waxaan markaa halkan ku wareejinay agabkii waxa weeyaan iskugu jiray waxa weeyaan hadduu yahay alaabtii wax lagu qorayay kaarashii iyo microphone-adii wacyigelinta laftigeeda lagu sameeyay oo qaybinay toddobada caafimaad degmo ee gobolka Doolo iyo maanta si rasmi ah ugu wareejinay waxa weeyaan madaxafiisyada caafimaadka degmooyinka gobolka Doolo. waxaa ka horeeyay oo qabanay isagana tababar waxa weeyaan ka horeeya intaan abaabulkan la gelin ama ololahan aan la bilaabin oo ay ka soo qayb galaan dhammaan xamaareyaasha xarumaha caafimaadka iyo khabiirada xafiiska caafimaadka degmooyinka iyo madaxafiisyada caafimaadka iyo hay'adaha bahwadaagta. tababarkaas oo ku gorfeynayna inuu si fiican ugu qabsoomo ololahan intuusan bilaabanin ka hor. waxaan markaa maanta aan ku xijinay inaan agabyadii u baahnaa dhan aan u qaybino. waxaan rajaynaynaa marka insha Allah haddii Allah uu talo ololahan aan maanta daahfurnay in agabkiisa qaybinay oo bilaaban doono 22 bisha oo ah waxa weeyaan maalin kadib maalin ay naga xigto inuu si fiican ugu qabsoomi doono inagoo diyaar garow fiican ka sameynay. maanta u dambeysana agabkii ugu baahida badnaa ee wacyigelinta lagu sameeyay aan u qaybinay toddobada xafiis caafimaadka degmooyinka gobolka Doolo. waxaan markaa la beegsanayaa ama waxa weeyaan la campaign-kan ama ololahani uu quseeyo caruurta da'doodu ay jirto 9 bilood ilaa 59 bilood ama 9 bilood ilaa 5 sano ee ku nool dhammaan gobolka Doolo. meel walba qabale kuwa ku nool iyo kuwa miyiga ku nool. waxaan markaa rajaynaynaa in shacabkeeduna ay ka faa'iideysan doonaan dhammaan shacabkuna ay taageero siin doonaan waxa weeyaan xubnaha wada waxa weeyaan shaqooyinkan sidaasaan marka maanta aan ku bilownay.